ujeedka maanta halkan aan isku nimid waxa weeye inaan iftiimino marka hore horta warbixinta inaan dhageysano waxqabadka wasaaradda iyo hay'adda duulista marka labaadna inaan xusno dadka wanaagsan oo muddada dheer u soo halgamayay in haddii ay suurtagal noqon inay gudaha Soomaaliya ka shaqeeyaan ay tagaan Kenya muddo aad u fara badan ka shaqeynayay hawshoodiina weli sidoodii u sii watay oo halkaas ka ilaalinayay sovereignty Soomaaliya qaranimada Soomaaliya xaqiiqatan maanta inaan xusuusino waxqabadku ay hay'adda higsatay ama ay gaartay aan ku abaalmarino sababta aan u soo celinay noogu qaadatay 2 sano hay'adda inay dib dalka ugu soo noqoto oo qarannimadeennii iyo maamulkeennii hawada aan soo ceshano ma ahayn wax hadda bilowday ma ahayn waxay ahayd markii aniga la magacaabay oo prime minister ahaa 2010kii shaqadii ugu horeysay oo aan qabtay yaday ahayd oo aan u diray ra'iisul wasaare ku-xigeenka markaas iyo oo ahaa wasiirka qorsheynta Nairobi sidii aan u soo ceshan lahayn waxaynu yiraahdeen waxaad tihiin ku meel gaar marka aad ka baxdaan allaha idin gaarsiiyo waxyaabaha naftigayga igu kalifay inaan diido in waqtigaasi waqti lagu daro 3 sano ah oo ku meel gaarka lagu jiro runtii waxay ka ahayd qayb in qarannimadeennii wax badan ay ka maqan tahay ee qayb ka tahay soo celinta hawada markii aan ku guuleystay xilka madaxweynenimo 2017 wasiirkan u yeeray waxaan ku yiri qorshahaaga muxuu yahay nin iska cusub oo ahaa oo runtii magaalada kala baranaya iyo shaqaalaha hay'adda u shaqeeya ugu horeeyo Cali Gacal waxaan ku yiri hay'adda kaliya ma aha waxa baranayso hawadeena maqan ilaahay wuxuu ugu soo celiyay inaan mas'uul noqdo waxa laga yaabaa hal kaliya haddaan wax ka qabto inay noqoto soo celinta hawada marka u kaba gasho waxaan ka rabaa sanad gudaheeda inaad soo celiso hawada iyo maamulkeeda wuxuu la xiriiray qolooyinkii qaabilsanaa oo hawshaas runtii waana ku mahadsan yihiin muddada dheer noo hayay oo howlwadeennadu qaar in badan ay u shaqeynayeen Nairobi xaruntooda ahayd waxay ku yiraahdeen markaan hubsano in dalkiinu waxa xasilooni siyaasad leeyahay oo adigu aad joogto sanad ka badan yaan soo celinayna waa xaqiiqa waxba haswaalin 6 bilood yaa joogi doontaaye bal 6 bilood marka la dhaafo noo imow aan wada hadalno way ugu soo noqdo wuxuu yiri dadkan waxay filayaan inaan 6 bilood joogi doono oo nin cusub ee la macaamil doonaan waxaan ku yiri waa isbaran hadduu ilaahay yiraahdo haddaad 6 bilood joogto iyo haddii ay ka yar tahay haddana 4 sano ku dhow yahay ma insha Allah waxaa qayb ka ahayd inay soo noqoto xasiloonida siyaasadda maxaa yeelay waa u dhabar adeegnay wax kasta oo jira waxaa nagala weynaa wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah waana ku guulaysan runtii marka la fiiriyo ama naloo fiiriyo kuwii naga horeeyay waan u dhabar adeegnay inaan beeneyno fakarkooda ahaa siyaasadda Soomaaliya ma aha stable mana raagto ee intaad hayn kartaan maamulkeeda haya markay arkeen in aanan jixinjixaynin wasiirka iyo howlwadeennada wasaaradda iyo maareeyaha iyo tiimka la shaqeeya waxay ogaadeen inay u fududahay inay soo celiyaan hawada oo xamar la keeno laga maamulo Soomaaliya halkan aan u madax banaanaano hawadeena ilaahayna waa nagu guuleeyay muddo 2 sano ka yar ilaahay waa nagu guuleeyay waana ku mahadsan yihiin runtii madaxda wasaaradda iyo hay'adda duulista iyo howlwadeennada naftigooda
hawsha soo wareejinta waxaa ka adkaa iyo inaan niraahno qarannimadeena waa soo ceshanay qayb ka mid ah maamulkeeda oo runtii walwal badan naga hayay oo dad badan ay raadinayeen ama ay filayeen inaan fashili doonno oo la oran doono ilaa waxaana la geliyay moratorium yaana la geliyay waqti yar yaa waxa la lagu dayo aan aragno in ay hawsha serious ka yihiin oo ay hayn karaan waa ku mahadsan yihiin howlwadeennada wadaniyadda ay muujiyeen daacadnimada ay muujiyeen inay dalkooda u shaqeeyaan sharafkoodii iyo karaamadoodiina ay soo ceeliyaan dalkoodii aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinayaa waana ka dhabeeyeen in awalna aan maamulan jirnay intii dowladnimadii dhexeysa naga burin haddana dadkii ay yihiin ayna diyaar u yihiin inay maamushaan hawadooda waana maqlaysin hadda warbixintii ayna siiyeen maareeyaha iyo wasiirkaba in aan uga jirno meel wanaagsan marka loo fiiriyo maamulka iyo maareynta hawadeenna iyo duulimaadka iyo airportka safetygiisa runtiina ilaahay ka sokow ma haddaas waxaa iska leh mar kale aan ku celiyo wasaaradda iyo hay-adda maxaan ku rahaa duulista iyo maamulka controolka hawada waana runtii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waa idinkaga mahad celinaysaa shaqada wanaagsan iyo magaca wanaagsan aad u soo hoyseen waxaa dhiiqa ah inaan haysano xitaa qalab ka fiican kuwa dowladaha dariska ay haystaan kaliya qalab maahee maamulkooda iyo isticmaalkoodana dadkii khibradda lahaa ama experience-ga lahaa inay halkan fadhiyaan waan runtii idinkaga mahad celinaynaa maanta warbixintaasaan ka dhagaysanay waa filayay runtii waxqabadkaas iyo horumarka aad gaarteen ama dalkiina runtii aad soo gaarsiiseen wax badanna ay noo harsan tahay ayna nooga xiran tahay in aan sii soconno oo hawsha la sii wado aysan kala joogsan in aan shahaado sharaf idin siino inaan idin mahad celinno anigoo matalaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aad shaqo wanaagsan ummadda u qabateen ma aha in aad shaqaale kaliya tihiin inaad xil gaar iska saarteen wixii la maleynayay oo ahaa in aad shaqadiina ay ku qurxooneed inaad Nairobi ka shaqaysaan ay halkan kaga sii qurxoon tahay oo aad tihiin dad muwaadiniina oo wadaniyiina oo ilaashanaya sharafkooda iyo karaamadooda aad baan runtii idinkaga mahad celinaynaa abaalmarintan waa hawsha wanaagsan aad qabateen ummadana aad u qabateen mudanna in la idinkaga daydo waxaan rajeynayaa hay-adaha kale ee dowladda haddii yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha kaleba inay idinkaga daydaan shaqada wanaagsan aad qabateen waxaan idinku boorinayaa aan idinku adkeenayaa aan idinkula dardaarmayaa inaad xoojisaan aana laba jibaartaan shaqadaas wanaagsan aad ummaddiina iyo dowladdiina aad u haysaan waa salaamatihiin